jannadiisa Allah geeyo cadaabka Allah ka xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala allu marti u yahay martidiisa Allah ma haleeyo ilaahay meel wanaagsan ha geeyo eheladii iyo qaraabadii na ilaahay tabaaraka wa tacaala sabri iimaan Allah waafajiyo badal khayr qaban Allah siiyo inagana dhamaanteen uu inaga wada baxay ilaahay tabaaraka wa tacaala badal khayr qab haynaga siiyo sabri iimaan Allah inaga siiyo walaalkeen Xuseen Xasan ilaahay baa adoomadiisa yaqaano loogama sheekeeyo Allah tabaaraka wa tacaala adoomadiisa isaga inooga xogaalsan laakiin inta aan marxaati ka noqon karno waxa weeye muddadii uu nala joogay iyo sidaan ku naqaanay khayr baan u rajaynaynaa masaajidka sigiska ayuu ka ahaa howlwadeen shaqada masaajidku waday 17 sano wuxuu qabtay mas'uuliyadda masaajidka fulintiisa 2008 bishii January maanta markii la yiraahdo 17 sano soo wareegtay 17 sano tiir dhaxaadka masaajidka sigisku uu ku taagan yahay buu ahaa marka waad garan kartaan markaas Suudaan buu ka soo baxay markuu saa uga yimid masaajidka shaqadiisu qabtay waxaan marxaati ka nahay muddada uu shaqaynayay oo aan marxaati furaynaa nin ammaano leh oo xilkas ah oo akhlaaq badan oo dadku wada jecel yihiin buu ahaa dadkii intii la mucaamalootayna way garanaysaa annaguna hoos baan xoogaal ugu nahay ilaahay hortiisa haddaan tagnana intaasaanu furaynaa marxaatiga furaynaa wixii naga qarsoonna ilaahay tabaaraka wa tacaala baa adoonkiisa naga yaqaana marka ilaahay ha u naxariisto qabrigana Allah u waasiciyo Allahumma thabbithu bil qawli thabit Allahumma ighfir lahu wa thabbithu bil qawli kasoo qaybgalkeena aan aaska kasoo qaybgalay iyaduna waxay tilmaamaysaa runtii qiimaha uu bulshada ku lahaa walaalkeen Xuseen Xasan adiyaafta iyo mujtamaca qaybihiisa kala duwan dad badan oo maqan oo safar ku maqan maanta waa jeclaan lahaayeen in aaskiisa joogaan innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir Allah inaga siiyo nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan hadii ruuxu uu salaadana ka qayb galo aaskana ka qayb galo laba ajiro waaweyn oo buurta Uhud leeg mid walba leeg yahay buu helayaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam haduu uu salaada tukadana hal ajir oo buurta leeg haduu labadaba isku darana laba ajir oo mid walba buurta leeg yahay buu leeyahay marka inagana ilaahay ajirka Allah inaga siiyo gadaashiisana Allah inama fidneeyo ajirkeena isagoo buuxa Allah inaga siiyo inta kadib walaalkeen magaalada Nairobi uu nuguna noolaa nin dhinaca masaajidka gacanta ku hayo ahaa bulsho badan la mucaamalooda dhanka kalena inuu noloshiisa dabartu ahaa hadii marka ay jiraan cid wax ka tabanaysa insha Allah taala hal iska cafiyo maanta isaga u baahan aan cafino insha Allah taala inaguna aan iswada cafino haday jirto wax dhaqaale ku saabsan ama hanti ku saabsan cid ku sheeganaysana ana la soo xiriiro insha Allah taala meydka waxa ugu daran isagoo deyni ku maqan tahay inuu qabriga ku jiray dib ay ku tahay oo yaani waxa weeye laga dabcin maayo kuleel badan buu marayaa deyntaasi uu qabo daraadeed marka cidii wax ku sheeganaysa hadayna cafinaynin ayadana insha Allah taala ana la soo xiriiro biidilaahi tabaaraka wa taala waalidiintiina waa joogaan iyo ehelkii hoose laakiin anaga mas'uuliyadda qaadayna biidilaahi tabaaraka wa taala reesigiisa hadaanu nahay hana la soo xiriiro wixii ku saabsan hanti haday jirtaba oo lagu sheeganayo biidilaahi tabaaraka wa taala kadibna wixii inta ka dambeeya hada waxa inoogu filan runtii darsi inoogu filan waxay dhigi jireen Soomaalidu wacdi waa arkaysaa ku filan ruuxa wacdi waxa ugu filan inuu arko dadkii oo dhimanaya oo la aasayo oo godka la gelinayo oo xoolahoodii iyo caruurtoodii iyo milkigoodii iyo boqortooyadoodii waxay haysteen oo dhan ka dhaqaaqay halka markii lagaga tago wixii ka dambeeyana ilaahay baa garanaya tabaaraka wa tacaala waxay la kulmayaan dadku khayr badan baa muslimiinta u rajaynaynaa laakiin garan maysid waxaad la kulmayso laga bilaabo imtixaanka qabriga iyo su'aalihiisa ilaa aakhira iyo saarkeedii iyo janno iyo naar iyo hawl culus baa dambaysa oo aynu kaga mashquulsanahay wax badan oo qiimo weyn leh inuu adduunyo aynu kaga mashquulsanahay wala inagu fidnayo adduunyada inaynu ku mashquulaayo waa ilaahay baa inoo abuuray
laakiin waxaynu u baahannahay mar walba inaynu xusuusnaano godka yarkee 2 mitir ah halkaasaa kuu dambayn haddaad madaxweyne tahay haddaad wasiir tahay haddaad taajir tahay haddaad culimo tahay haddaad aqoon-yahan tahay haddaad magac leedahay haddaad miskiin tahay godkaa yarkee 2 mitir unbaa inoo wada dambeeya marka godkaa wixii berri aad ku heshan lahayd adaa lagaaga baahan yahay inaad diyaarsato nabigeennu sal alay wasalam wuxuu sheegay ruuxa marka loo soo qaado qubuuraha 3 shay baa soo raaca waxaa soo raaca gaadiidkii lagu keenayey ehelkii aasayeyna way soo raacaan waxaa kaloo soo raaca camalkiisii laba way iska noqonayaan markay godka ku hubsadaan mid baa ku hadhaya oo wehel u noqonaya qabriga kula jiri doona hadduu xun yahay hadduu fiican yahay waa camalkiisa waa wixii kaloo dhan waa ku sagootinayaan maca salaamati ilaahi wa xifdi halkaas ay suukiin dambaysa raasamaalku marka waa camalkaaga waa caqiidada hagaajiso camalka hagaajiso toobadda ku dadaal insha allahu tacaala khayr inaad khaatumada ku khaatumaysato khayr ku khaatumayso isku dayo insha allahu tacaala geeridu waayahan dambe ninkan walaalkeen aad arkaysaan hadda aaskiisa aan u nimid yacni xalay wuu ladnaa fashihii waa wada tukannay waa ka soo tegay aniga isagoo masaajidka xafiiska jooga waxoogaa buu ku yardahay sida la ii sheegay markuu baxayba waxaa soo yeedhay qayladii ahayd waa meyd yacni ruux soo xanuunsaday oo soo rafaaday ma aha marka saasayna u badan tahay haddii lagu daayo xataa kaba soo qaad haddiiba lagu daayo wakhtigu wuxuu kuu marayaa adiga oo aan dareemin maalinta ugu dambaysa adoo gabagabada jooga baad arkay haddii xataa faraha lagaa qaado oo wakhtiga lagugu simaba marka wakhtigu wakhtigii hore ma aha zamankuna zamankii hore ma aha duruuftii hore ma aha dadow marka darsi inoogu filan qubuurtaad arkaysaanu dhex joogno maalinkii la bilaabayey waan joognay halkaa markii qubuurta laangaata laga soo bilaabay ruuxii ugu horreysay lagu aasay waan joognay maanta imisaa ku aasay yacni wax weeyaan dadkaa meeshaa ku aasan waa asxaabtii waaye waa dadaan wada naqaana intooda badan qubuurihii waa buuxsameen mar baa dhulka lagu daray haddana waa buuxsameen haddana mar kale lagu daray haddana waa buuxsameen haddana waa sii socdaan waxaasi ehel adduunyay ahaayeen sideenoo kale u fikirayeen balaan bay lahaayeen qorshayaal 20 sano iyo 30 sano u deganaa wixii qorshihii deganaa oo dhan ta ilaahay baa ka soo kamartay adiguna waa sida hamigaaga iyo amalkaaga meel sii jira geeridu waa ka sokaysaa mar walba marka diyaar garowga isticdaadka aynu ku talagalno insha Allah tacaala oo aan ilaahay la kulankiisa isu diyaarino mar kalena walaalkeen insha Allah si gooniyo si gaar ah aan ugu soo ducayno waana inaga mudan yahay runtii dadkan ugu mudan buu kamid yahay maadaama uu maslaxada caamka u taagnaayo masaajidka ilaahay muddo 17 sano uu hogaaminayay maamulkiisa nafci badan buu ummadda muslimka u geystay marka wuxuu inagu leeyahay abaal buu inagu leeyahay abaalka inta aan gudi karno waxa weeye insha Allah tacaala u soo duceeyo si khaas ah si caamaba ha loogu soo duceeyo insha Allah tacaala dadka kale walaalaheena qubuurta ku jirana insha Allah marka qubuurta la yimaado ha loo duceeyo السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أيها لفتوضا إن لو دعيوا مركز قبورة تمادان وسو سيارتان درسنا كقادة النبي قال نوح صلى الله عليه وسلم قبورة سيارته قبورة بوغضب النبي صلى الله عليه وسلم حيالي آخرنا وإذن حسوسين إيسا إندهنا وكي الميسين إيسا يعني واحد نولش هذا بدن بيكبدل إيسا مركز تمادو قبورة انتا تمادو فكيرته وتير هذا أذيقنا هل كان أكود ضمين دونا دادكن وشالي هذا وكالي أهايين noloshaada marka dib u noqoto wax badan baa iska ka bedelay marka qubuurta guudna loo duceeyo insha Allah tacaala tawfiiqda Allah inoo waafajiyo aadna waa mahadsantiin ka soo qaybgalkeena ajirkiina dhameystiran Allah idin siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hal qodob baan halmaamay qubuurta waxa aad ugu soo kordhay sida muuqata dhismaha qubuurta la dhisayo sida qabrigan hadda aan dul taaganahay kale yaa aad ugu soo batay Soomaalidu waagii hore uma badnayn oo dadka kale umba qubuurta dhisi jiray laakiin hadda sida muuqata waynu qaadanay oo qubuurtii la dhisaya muuqata arrinkaasi waa arrin khilaafsan sharciga Nabi Maxamed la yimid sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiis cad oo rasuulku wuxuu leeyahay wuxuu reebay rasuulku sallallahu alayhi wasallam qubuurta in la dhiso wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku celiya carradii ka soo baxday in yaroo taaka ah dhulka kor uga qaada inta wixii ka dambeeyay qabriga lagu siyaadiyo waa khalad iyo xoolo lagu ciyaarayo iyo shariicadii oo la khilaafay dad waxa jira qubuuraha jooga oo ka ganacsada oo inay sidan u dhisaan oo hanti ku qaataa jira umadiina jahli baa hayo ma taqaano xoolahan meesha ay ku dayacayaan ruuxan qabriga ku jira waxba u tarimayso haddaad korkiisa dahab ka wada lulshaan iyo dheeman haddaad ka laalaadisaan iyo carro keliyata hadday tahay waa isugu mid wax alla wuxuu muxuu ahay uu qaadanay ma jiro magaca lagu qorayo amaan bay qaarkood ku qorahayaan kanuu ahaan jiray maxay u taraysaa waxaas waxyaalo shariicada khilaafsan weeye dadkana hala gaarsiiyo
sidaasoo kale marka carrada loogu rogo isagii ilaahiisa ha laysu daayo ma dayacna waraaba ma cunahayo yacni waxa weye dhib ma hayo intaasina astur ku filan intaasunbaa laynooga baahan yahay arrinkan ha lagu baraarugo insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu هذا الأخوان حتى هذا الراجل حتى أخوانه في السودان موجودين. الخبر إن شاء الله فيصل نرجع ربنا يتقبل إن شاء الله وجمع أصحاب اليمين إن شاء الله. هذا الرجل رجل ربنا إن شاء الله جنة الفردوس إن شاء الله. ربنا يتقبل قبول حسنة إن شاء الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم. كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة